saldanadii galadi waa beel Soomaaliyeed oo si weyn ugu dhaqan duulooyinka ku teedsan magaalada Afgooye ee koonfurta Soomaaliya waxay ka mid yihiin faracyada digil ee raxan weyn waxay beeshan saldhig u ahayd saldanadii galadi oo ahayd boqortooyo awood leh oo hana qaaday qarnigii 17aad dabayaaqadiisii jirtayna ilaa horaantii qarnigii 20aad beesha galadi waxay u kala baxdaa laba laan oo waaweyn tolweyne iyo yabadhaale reerka boqortooyada waxay ahaayeen gobroon waxayna sheegtaan inay ka soo jeedaan Umar al-Diin Abaadir Sheekh Carab ahaa oo aan mar ka soo waramay oo xukumayay magaalada Har sheegashada ka sokow dadka galadi sida beelaha kale ee raxan weyn waa Soomaali asal ah sheegashada nasabka Carabtana waxay kala siman yihiin beelaha waaweyn ee Soomaaliyeed sida Daarood iyo Isaaq soo dhawaada saaxiibayaal juqraafi ayaad igala socotaan madal aan ku soo gudbiyo taariikhda iyo tagtada Soomaalida bilowgii saldanadii galadi iyo xulafadooda wacdaan waxay hoos imaanayeen taliskii Silcis oo ahaa laan hoos timaada saldanadii Ajuuraan Ibraahim Adeer oo galadi ama saldanadan aasaasay awowgii waxa uu ahaa haliyay hogaamiyay ciidamada badan oo guula ka gaaray weerar xoogan oo aramadu ku soo qaaday meel lagu magacaabo Lafagaale Ibraahim Adeer wuxuu dagaal adag la galay Silcis wuxuuna ku guuleystay inuu dhiso dawlad cusub oo madax bannaan taas oo ahayd bilowgii saldanada galadi si degdeg ah ayay u kortay una noqotay dawlad xoog badan oo xukumaysay qaybo ballaaran oo ka tirsan geeska Afrika xarunta saldanada waxa loo aasteeyay magaalada Afgooye oo ku taal aagga labada webi saameynteeda waxay ku fiday deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan Baay Bakool Gado iyo qaybaha hoos yimaada webiyada Jubba iyo Shabeelle waxay saameyn xoog leh ku yeelatay xeebaha Banaadir waxayna gacan ku dhigtay ganacsigii webiyada Jubba iyo Shabeelle awoodoodii ugu sareysay waxa ay gaadhay xilligii uu talinayay Sultan Yuusuf Maxamuud Ibraahim oo ahaa ninkii ugu awoodda badnaa ee boqortooyada soo maray saldanadu waxay xiriir diblomaasiyadeed la lahayd dalalka dariska la ahaa xeebaha Soomaaliya iyo xataa boqortooyooyinka jiray koonfurta Carabta saldanadu waxay wajahday laba kacdoon oo adag waxaana ugu sii darnaa kii ka dhacay magaalada muhiimka ah ee xeebta leh waa markaa kadib waxa ay bilowday saldanadu inay hoos u dhacdo dagaalkii ugu horeeyay ee la diiwaan geliyay ee u dhaxeeyay galadi iyo beesha Biyamaalna waxa uu ahaa dagaalkii Cadaaday Suleymaan ka hor dagaalkaas Sultan Yuusuf Maxamuud Ibraahim wuxuu guul weyn ka gaaray jasiiradda Siyu halkaas oo uu kaga adkaaday koox wadaadda ah oo hogaaminayay Xaaji Cali Majeerteen oo aan asaga laftigiisa mar kale ka hadli doono labada ciidan ayaa ugu dambeyntii ku kulmay deegaanka Cadaaday Suleymaan meel u dhow magaalada Marka sanadkii 1848 ugu dambeyntii dagaalka waxa lagu dilay Sultan Yuusuf Maxamuud iyo walaalkii waxaana guushu raacday Biyamaalkii oo markaas xiriir la lahaa boqortooyadii Cumaan waxa sababay inay meesha ka baxdo saldanad galadi kadib markii dhulkeena uu la wareegay Talyaaniga ayadoo maxmiyad u noqotay Talyaaniga muddo 4 sano ku siman kolkaas oo ay bilaabatay waayihii cusbaa ee Soomaalida ee sanadkii 1960kii lagu dhisay Jamhuuriyadda Soomaaliya gabar cilmi baara ahayd oo dalka Ingiriiska u dhalatay laguna magacaabi jiray Virginia Llewellyn ayaa booqatay Afgooye sanadkii 1889kii waayihii uu sii wisiislahaa taliskii Maxamed Siyaade waxay qortay in suugaanta galadi ay tahay mid hodana oo aan u baahnayn in laga fakiro ee markaba uu tiriyo abwaankeed galadiyiintu waxay ku hadlayeen afmay oo ah lahjad gooni u ah raxan weynta saldanada galadi waxay door weyn ka ciyaartay taariikhda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada maamulka siyaasadda dhaqaalaha iyo isbahaysiga waxay tusaale u tahay sida qabiilo miyiga ah ay u qaabeyn karaan una dhisi karaan awood dawladeed oo xoogan saldanada galadi waxay taariikh ahaan ka mid ahayd dawladihii Soomaalida ee lahaa awoodda ganacsiga dhaqamada xiriirada caalamiga ah mana ahayn kaliya maamul miyiga ah taasi waxay ka dhigaysaa in Soomaalidu haddii ay isku madax bannaanaato dawladoobi karto waxa laga baran karaa sida beel miyiga ah ay u dhisi karto dawlad u maamuli karta ganacsi u yeelan karta xiriirada diblomaasiyadeed dhaxalka saldanadii galadi ma aha oo kaliya sheeko haliyay boqorro ama dawlad duug ah waa sheeko ku saabsan Soomaaliis ah oo wax u gaar dhisatay awood leh dhaqan iyo bulsho ahaan xoogan kuwaas oo horseeday isbeddello waaweyn